walaalayaal aan joogtayno akhrinta qur-aanka kariimka ah. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay qur-aanka akhritaankiisa faa'iidada laga helo, waayo wuxuu yidhi qur-aanka akhriya. qur-aanku qiyaamaha wuxuu imaanaa asigoo uu shafeecayo qofka akhriyey. midda kale xadiidka labaad uu ahay laba ma jeersado, yacni quuri waay labo kaliya ayay ku habboon tahay. inaad qof wax u quuri weyso laba shay kaliya ayay ku habboon tahay. shayga koowaad waa qof qur-aanka yaqaano hamiin iyo maalina akhriyo. qofkaas haddaad aragto waxaad leedahay ilaahayow kan camala minaan ahaa lahay nabi waa guulaysa lahay. qofka labaadna waxaa waaye qof maal ilaahay siiyey misena ku bixinayo dariiqii rabbi subxaana watacaala raalli uga ahay. asigana mugaad aragto waxaad leedahay loo maal helaa mina maal heli lahay. ninkan sidiisaan ahaa laha waa sadaqaysa lahay. gabartan sideedan ahaa laha waa sadaqaysa lahay. muga walaalayaal qur-aanka faa'iidada uu leeyahay asxaabu rasuulillaah maal badan oo ay sadaqaystaan oo ay jinno ku galeen ma haysan. waayo guriga nabi maxamed oo guryaha ugu sharaf badnaay, ugu karaamada badnaay, ugu carafta badnaay, ugu edgoon badnaay, ugu nuurka badnaay ayaa laga yaabaa asbuucyo guri inaan dab laga shidin baahi darteed. muga qof gurigiisa dab aan laga shidin waa adag tahay inuu wax sadaqaysto, waayo maba haystaba waxuu sadaqaysanaa. inkastoo waxa ay sadaqaysanayeen iyo waxaanunku maanta aan sadaqaysanayn waxa iga sadaqaysanayeen ay baraka badnaayeen. waayo adigoo 1 shilin haysto haddaad shilin ka wada bixiso iyo adigoo 100 shilin haysto haddaad 1 shilin ka bixiso way kala ajri badan tahay dabcan. laakiin sida guud haddaan dib u milicsano qur-aankan akhritaankiisa jawiyay ku faa'iideen. waayo qur-aanka haddaad akhriso halkii xaraf waxaa lagu yidhi waxaad ku leedahay 10 darajo. halkii xaraf 10 darajo. laa aquulu alif laam miim alif walaakin alifun xaraf walaamun xaraf wa miimun xaraf. xadiidku waata u ahay alif laam miim jawiya waxaad ku leedahay 30 darajo, 30 xasanaad. beg qur-aan ah haddaad ka tuurto halkii sadar ayaa waxaa ku jirto taqriiban 40 xaraf. 40 xaraf ayaa ku jirto halkii sadar. muga halkii sadar oo akhriso ayaad waxaad ku leedahay 40 lagu dhuftay 10 meeqa waay 400 oo darajo ayaad ku leedahay halkii sadar. maxaad u filaya marka haddii alla idinkeedii leeyahay maxaad u file beg maxaa u file oo jus maxaa u file oo xisib maxaa u file oo qofkii wada dhammay kara maxaad u file. muga walaalayaal qur-aanka akhritaankiisa aan joogtayno ma ahan inaad qur-aanka dhan wada taqaan. dadka qaar ayaa waxay u fahmaan haddii la qur-aanka akhri qur-aan ma aqaan waxaan akhriyaa. qof aan qur-aan aqaanin maba jiraba. qof aan qur-aan aqaanin muslimba maahaba. muslimnimada qur-aanka muslimnimada qofka bani aadanka ah waxay ku jirtaaba qur-aanka. waayo laa salaata ilaa bifaatixati kitaab xadiidka ma hayno noocaas camal ah. haddii aadan faatixa akhrin salaadu kuma jirato, salaaddu waa kaa buratay ogow. faatixada lagu sheegaana waa qur-aanka. faatixada lagu sheegaana hadda waa qur-aanka, waa umulqur'aan, waa umulshaafiya. walaqad aataynaaka 7 min almasaani walqur'aan alcadiim. yani qur-aanka lagu sheegaa waa faatixo. muga faatixo haddaad taqaanin qofka ugu yar wuxuu yaqaanaa faatixo. qofka ugu yar baan dhahnaba faatixo haddaad taqaanid haddaad beriga tumami ka badan akhriso. faatixo magacaashada waxaa ka mid ah tikraar, tii la soo celceliyey. yacni waxaa laga yaabaa maalintii inaad akhriso faatixo 5 salaadood mugii laga tago sunnayaashooda laga tago tumamigoo kale ood ka socoto. waayo umulqur'aan aa layidhi. umulqur'aan sababta loo yidhi waxay tahay guriga hooyo iyo aabe la kulanka ilmaha ayuu ku badan yahay. hooyo ku badan yahay waayo aabe 8 sacna waa soo shaqeeyey, 8 sacna bablateg iyo bulutik iyo wuxuu ku aaday meelaan jirin iyo biibito, 8 sacna waa jiifaa. waqti waaba dhammaadaba waa 3 sideedaad waqtiga waa ku dhammaadaba. laga yaabay asoo sii baxa inuu cunuga sii salaamo markuu imaahana soo salaamo. inta kalena waa maroo maqan yahay muguu jiifo iyo muguu banaanka iyo muguu shaqo jiro. laakiin hooyadu 24 saac ay gacanta ku haysaa. hadday jiiftana qalbigeedu ku jiro ay leedahay muguu meel ka dhaco amba cunug soo ooyo waa soo kacee. hadday soo kacday xoogaa cilmi kala sabtay seexato saacadda ugu horeyso waa hurdo haysaa waa sii socotaa, laakiin weli qalbiga wuxuu jiraa ilmihi. waxay leedahay anaa moodara soo kacaa.
muga saasaa loogu yidhi umulqur'aan guriga waxa loogu badan yahay waxaa waaye hooyada la kulankeeda qur-aankana waxa loogu badan yahay waxaa waaye faatixada oo qur-aanka aad akhriso waxa ugu badan akhriso waa faatixo salaadaad ku akhrihe wardi dhalaad ku akhrihe haddii la idinka dila haddii qalanku kaa dhumaad akhrisehe haddii madaxa ku xawnaad akhrisehe ma ujeedaa muga walaalayaal qur-aanka akhritaankiisa aan joogtayno qur-aanka akhritaankiisa faa'iidada laga helo laguma soo koobi karo daqiiqad iyo daqiiqado iyo maalin iyo maalmo iyo sanad intaba qur-aankaas ilaahi subxaana watacaala wuxuu adduunkan ugu talagalay in lagu maamulo waa qur-aankaas maamul kaliya ma ahana waa qofku inuu ku noolaado waayo qofku min caloosha uu kasoo baxo waxaa layidhi dhagaha looga aadimo qur-aanka lagu akriyo mugow dhintana waxaa layidhi qur-aan lagu akriyo inkastoo qur-aanka qofku markuu dhinto qabriga lagula akriya xoogaa lagu kala aragti duwan yahay haddana sida guud aan u qaadano qur-aan lagu akriyo intii ka dhaxlayso waxa qofka uu qabanaya qur-aankaasay ku jiraan gurigaa ka baxday shaqaa aaday sada kula macaamiilayso sida haddaad uqeef tahay dadku ay kula macaamiilayaan sida haddaad madaxweyne tahay dadka shacabka aad madaxweyne u tahay ay kula macaamiilayaan sida haddaad guddoomiye baarlamaan ama guddoomiye gobol ama guddoomiye degmo ama guddoomiye aad tahay yacni nolosha dhan oo dhammaystiran manhaj dhammaystiran waaye baarlamaana loo baahnayn sharci dejiyaan loo baahnayn haddii alla ku ron yahay golo wada tashiyaan loo baahnayn aragti kala dhiibashaan loo baahnayn qur-aankaas ayay waxay ku jiraan wax kastaba waxaa waaye dadkii fahmi lahayaa maqan dadkii fahmi lahaay afalaa tadakaruun afalaa tacqiluun afalaa tubsiruun yani dadkii fahmi lahaayaa maqan waayo qur-aanka wax kasto waa ka dhex heli laakiin in aduu ka weysaa kuu daran bis qur-aanka haddii lagu miisaaliyo mool qur-aankaa ku miisaalinaba ku yaal suuqa bakaaraha moolkaas waxaa ku yaala annahnaba 10 dukaan 10ka dukaan noloshaada dhan 10kaas dukaan kama badnaba noloshaada dhan 10kaas dukaan kama badna beriga hal waa caano haddaa la kurinaya hal waa alaabta baabuurta hal waa dhar hal waa kii raashinka la cunayo oo jumliyad tafaariiq yani 10 dukaan ka badan maba ka adeegatidba sida caadiga qofka baniaadanka 10 dukaan uu ka adeegtaa ka badan maba ka adeegtaba amba 7 annahnaba sida ugu badanba muga 7daas dukaan oo moolkaas ku dhex yaallo wax walba waa u baahan tahay waa kasoo heli laakiin waxaa daran inaaday aqoon weyso amba dukaankii qaabkii meesha ku yaalmaa meel kale aad tagtid ama haddii alla idinkeeda leeyahay iskafaallaha meeshay ka saarnaayeen meel kale aad tagtid muga qur-aanka walax kasto aad ka doonato aad ka goobato waa kasoo dhexeli wax lahuba waayo laakiin waxaa daran in aad adigu ka weyso haddii aad ka weysana macneeda ma ahan dadka qaar ayaa u fahmo ayadan qur-aanka waa kasoo waaya ama macnaha qur-aanku ma jiro waa been nimaa maalin igu yidhi in canshuurta la kala qaato qur-aanku ma jirto waxaan ku yidhi in canshuur la kala qaato waxay soo gelay ulul amri way ulul amriga beledka xakumo go-aanka uu soo jeedsho waa in la raaco haddayna qur-aanka ku jirin ulul amri ahaan waa ulul amrigan beledka xakumo canshuurta wuxuu ugu talagalay dadka masaakiinta in lagu quudiyo dadka dharga in laga qaado waa uun sakadiyo xoogaa la casriyey muga waxaa yidhi ulul amriga beledka xakumo weye ninka aad u shaqayso ama gabadha aad u shaqayso lacagta ayagay ka dhexaysaa ayagaa kala goosanaya adiga waxba kaama gelinba kadib baasiyada lagu sii hoo nadiif ku ah muga qur-aanka walaalayaal walax kasto waa ka dhexeliya walax kasto ee qur-aanka aan akhrino qur-aanka aan joogtayno qur-aanka maalintii haddaad akhriso jus waxaa waaye waxaad haysataa maasha allah jus ka badan la akhri karaa maalinta qur-aanka waayo juska waxaa lagu akhriyaa 12 daqiiqo 14 daqiiqo hadda qofka ugu badan oo carab adag 14 daqiiqo ku akhrisaa juska anigu waxaan ku akhriyaa juski 13 daqiiqo 12 daqiiqo taqriiban 10na waa gaartaa mararka qaarkood hadda way ku xiran tahay neefsiga adiga saad u beeqaansato neefsiga suuratul faatixa haddaan dhahno waa 7 aayadood haddaad 7 mugba ku neefsato aad tiraa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim maliki yowmi ddiin saas dhahdid waxaa laga yaabaa inay kuu qaadato daqiiqad ama daqiiqado laakiin haddaad isku qabato oo aad tirahdid bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim maliki yowmi ddiin saas dhahdid hal mugaad neefsatay muga kalna waaba dhamay heeba muga walaalayaal qur-aanka aan joogtayno ilaahay dartiisna hanaga ahaado ilaahay dartiis qur-aanku hanaga ahaado
adduunya aakhiro waanu liibaanaynaa haddaan qur-aankaas ku dhex jirno wallahi adduunya aakhiro waan liibaanaynaa adduunya aakhiro qof kasta wuxuu raadinaa waxaa waaye liibaan adduunyo iyo liibaan aakhiro waa la hubaa gaalkuna waa rabiyaa muslimku waa rabiyaa majuusigu waa rabiyaa wasanigu waa rabiyaa haddii alla idinkeeda leeyahay qof aan liibaan aakhiro iyo mid adduunya rab intaba ma jirto laakiin qaabkii loo mari lahaay ayaa kala qaldan gps-ka meesha waxa aad gashatay ku xiran tahay gps gurigayga ah haddii aad guri kala gashato gurigayga ku keedma guri kale ku geeya waa la hubaa muga gps-ka aad kugu jiro wixii lagu adreeska ilaahay kuugu talagala gasho adreeska aad u socoto gasho mid qaladana ha gashanin